bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xuseen aadan maxamed cabashadeennu maanta waxay ka kooban tahay shidaalkii oo nagu qaaliyoobay baabuurtii oo iska wada taallo sida hadda arkaysid shaqa la'aana suuq walba waa soo bixinnaa waan xareennaa shidaalkii baa qaalina looga dhigay ganacsatadii baa isfahamtay in yaroo istaqaannaa shidaalkii keenta run ahaantii wax walbana qaali bay nagu noqdeen sidaa darteed waxaan ka cabanaynaa oo maamulka jubbaland uga cabanaynaa shidaalkan qaaliyoobay oo ganacsatada afartan inay istaqaana ay qaaliga ka dhigtay inay wax ka qabato magaaladiina wuu ka buuxaa shidaalka oo intaasoo booyadood baa magaaladii lagu gediyo taalla baabuurtanadiina waa kuwa hadda iskarogaasaan wata aniga sidaa arkaysid wuu iska yaallaa 10 beri shaqo maana qaban shidaal aan ku kaxaynana ma laha waan soo dhaqnaa waan ku xareynaa midnimo group markay noo timid baa shidaal qaali annaga kismaayo ma qaban weligeena kama caban jirin midnimo group markay noo timid baa cabashadaba noo bilaabatay oo shidaal inuu qaaliyoobo oo ayagii wixii injo inay shidaal ka dhigaan bay noo keeneen ayagan ka cabanaynaa midnimo group Jubbaland waxa ugu baaqi lahayn ganacsatada oo ugu horeeya gudoomiyaha ganacsiga ruuska ganacsiga JCC inuu midnimo group naga qabto qoladan shidaalka qaraxa ka dhigtay ee ayaga kaliya isku koobtay inay wax ka qabtaan magacaygu waxa la Cabdiraxmaan Daahir Ismaan waxaanu ka cabanaynaa daan gaadiidka Kismaayoodnahay shidaalkii oo nagu qaaliyoobay dadku waa dad iska dan yara baabuurtu waxa waaye waa isma bixinaysa shidaalka ay ku shaqeynayaan iyo waxay qaban hayaan marka baabuurtu waxaan shaqalaan baa ku dhacday marka ganacsatadina waxay noqdeen wax ay intay xareysteen shidaalkii noocay rabaan ay u gadan hayaan ayagu oo ay qaaleysan hayaan kol ay hoos u dhigayaan kol ay qaaleysan hayaan waxaan markaa wuxuu noqday waxaan isbixin karin sidaa darteed waxaan uga cabanaynaa marka dawladda Jubbaland uga cabanaynaa inay wax ka qabtaan oo ganacsiga mataqaanaa ay dhex galaan oo midna group naga qabtaan midnimo group marka waxaan leenahay wasiirka ganacsiga arrintaas dib ha u eego dadkan waxa weeyaan waxa u qabtaan bismillaahi raxmaani raxiim cabashadan muujinaynaa waxa weeye shidaalkii baa nagu kacay dad yaraanahay waxaan rabnaa maamulka Jubbaland inay shidaalkaas kacay ganacsatada nagu kacaysa inay wax ka qabto intaa weeye cabashadeedu baabuurtii isma bixinayso shidaalkii qaali buu noqday sidaas weeye xaajadu waxaan ku baaqaysaa markaa waxaan ku baaqaynaa maamulku inay wax ka qabtaan ganacsatada cuno qabataynaysa shidaalkiina magaalada waa buuxaa waana qaali intaasaan ka codsanaynaa maamulka Jubbaland inay wax ka qabtaan